muhiimadda ay leedahay 4cc 4cc dadna dheeldheel bay u arkaan dadna dhab bay u arkaan dadna waxay u arkaan dariiqii guusha dadna waxay u arkaan wax ma garanaysaa in lagu dhibaayo dadna waxay u arkaanba waxay shirkadani u dhigtay aasaas iyo rugni si ay u guulaystaan marka haddaynu dhab u fiirino oynu xaqiiqada ku fiirino oo waxa weeyaan walaalayaal malaawaalka iska dayno afartaasiisi haddii aad fahanto adiguna aad tiimkaaga barto aad kadib wada samaysaan waxa ka iman doona waxyaabo mucjisaa tiimkeenna maasha allah tabaaraka allah hadda waad xasuusataan liidar khaalid waxa uu ahaa liidarada tiimkiisa xoogga saaray inay sameeyaan 4cc maasha allah ma garanaysaa tiimkiisiina waxay wada noqdeen supervisoro maasha allah isaguna wuxuu noqday manager marka ma tahay dariiqii guusha cadad male liidarada fahmay dariiqa guusha ee waxa weeyaan isticmaalay ee tiimkoogii baray ee fahansiiyey ee waxa weeyaan wax easiya ma aha wax dhibaata kaaga imanaysa haddaanad samayn oo dhibaata kuguma dhacayso laakiin haddaad fahanto oo tiimkaagana aad fahansiiso waa dariiqii aad ku guulaysan lahayd because forever living waxaad usoo gashay inaad ku guulaysato forever living waxaad usoo gashay inaad dreamkaaga iyo riyadaada aad ka dhabaysaad usoo gashay marka waa kan dariiqii ha ka habaabin 4cc-gan samee tiimkaagana waxa weeyaan ku taxalluji iyaguna say u samayn lahayn insha allahu tacaala how to make FLB work for you sidee bay forever living aad uga dhigi kartaa meel aad ku guulaysato meel adiga kuu shaqaysa meel aad ka gaadho riyadaada okay su-aashaasaa layna weydiiyey su-aashaas aan isleegna insha allahu tacaala waa su-aal aad iyo aad walaalayaal u nuxur weyn marka hore waxaa lagaa doonaya haddii aad doonaysa inaad forever living aad ka dhigto meel yani sidaad rabto kugu shaqaysa waa inaad ma garanaysaa alaabteeda isticmaasho isla markaana share 4cc dermant bishii aad alaabta ma garanaysaa wax weeyaan yani dad cusub aad qorto labadan weeyaan isticmaal alaabta iibi isla markaana waxa weeyaan 4cc bil walba samee sponsor sidoo kale tallaabada labaad ee lagaa doonaya waxa weeyaan inaad dad cusub qorto isla markaana dadka cusub ee qortay aad barto inay sameeyaan 4cc tusaalahaan 4 qof oo tiim ayaad leedahay afartaada qof ee tiimkii hadday sameeyaan adiga sideed ku noqon kartaa assistant supervisor because already 4 qof ayaad haysataa afar haddii lagu dhufto ma garanaysaa waa 16 weeyaan 5 qof haddaad haysato waa 20 cc baa kaaga soo baxaya then markaa adiga oo supervisorkii 5 qof oo 4cc sameeyaa kaa xigto maxaa ku daaliyay adiguna samee tiimkaaguna ha sameeyaan 4cc miyaanad guulaysanoo goolkaagii gaadhin iyaguna qof kastoo 4cc-gan sameeyana tiimkaaga isaguna dee maasha allah tabaaraka allah waa qof bishan shaqaystay weeyaan qofka 4cc sameeyaa wax kale maahine waa qof shaqaystay weeye qof aan samayn 4cc-na waa qof aan shaqaysan because qofka dhaqaale bishan sameeyey forever ka sameeyey waa qof 4cc sameeyey qof aan dhaqaale ka samayna waa qof aan garanaysaa 4cc samayn marka waxa weeyaan tiimkaa ka dhig kuwo waxa weeyaan dhaqaale ee ka sameeya forever kuwa had iyo jeer waxa weeyaan shaqeeya kuwa u diyaara inay guulaystaan oo ay ka go'an tahay insha allahu tacaala waa inay sameeyaan 4cc culays maaha haddana culays bay tahay macnaha waxa weeyaan diyaar uma inay shaqaystaan qof kastoo diyaar u ah forever inuu ka shaqeeyo waa inuu sameeyo 4cc because waxa weeyaan dee dhaqaale badan baad helaysaa ya qof haddaad maanta diiwaangeliso 30% baad helaysaa laakiin haddaana samayn 4cc waa 50 laba qof oo diiwaangelisan already 4cc waad samaysay halkaagii baa kaa dhimanba wax adag miyaa walaalayaal wax adag maaha wax adag inaan ka dhigin insha allahu tacaala marka su-aashu waxa weeye sidee baan uga dhignaa forever mid adiga kuu shaqaysa sidee baa forever living aad ugu guulaysan kartaa adiga rayigaaga waa maxay tusaale ahaan haddii aad 5 qof diiwaangeliso had iyo jeer 5tan waa la soo qaataa waa inay jiraan waxaad taarget garaynayso markaad leader tahay maanta 5 qof haddii aad taarget garayso waqtigaaga 5tan qof u qaybi insha allahu tacaala sidii aad 5 qof aad ku diiwaangelin lahayd hawsheeda gal 5 qof waa inay yihiin 5 qof oo nadiifa waa inay yihiin 5 qof oo maskax furan waa inay yihiin 5 qof oo ma garanaysaa inay dhaqaale sameeyaan diyaar u ah waa inay yihiin 5 qof oo dhinaca wanaagsan wax ka eega 5 qof oo ma garanaysaa aragti fog leh waa inay yihiin marka waxa laga doonayaa 4cc inaad samayso 5 qofna waa diiwaangelisay 2 mid waliba waxa uu sameeyey 4cc waa 20cc halkaa kaga soo baxay already bishaas waxa tahay
ma garanaysaa supervisor ayaa tahay waayo hal cc unbaa kaa dhiman waa adigoo 4 cc sameeya iyo 5 qof oo sameeya maxay ma garanaysaa min 4 cc sameeya qaacidadan u fiirsada walaalayaal waaya 5tii qof tusaale ahaan iyagana waxaad bartay inay sameeyaan ma garanaysaa dad ay diiwaangeliyaan alaabtii inay isticmaalaan 3 qof bay tusaale ahaan qoreen waaya 3dii qof mid waliba uu qoray 5tii qof tirada guud ee teamkaaga waxay noqonaysaa 15 FBO baad haysataa 15ka FBO haddii ay bisha dambe sameeyaan 4 cc 60 baalka kaga soo baxaya maasha Allah lacag leeyahay taya already 15 qof oo FBO ya active ah waxay kaaga khayr badan yihiin inaad haysato 30 FBO ama 100 FBO ama 50 FBO ama intaas FBO oo nafarna sameeyeen waxbana sameeyeen oo iyaga ma garanaysaa ayaa kuwaas ka khayr badan maasha Allah marka 60 cc waa kaga soo baxaya muddo 2 bilood haddii ay sameeyaan 4 cc 120 weeyaan maasha Allah tabarakallah haddii 15kii qof ee FBO ee aad haysatay teamkaaga ahaa uu mid waliba tusaale ahaan uu 2 qof qoro halkan maxaa kaaga soo baxaysa waxa kaaga soo baxaysa in 30 FBO baad haysataa maasha Allah tabarakallah ama se maasha Allah tabarakallah 3dii qof ee aad qortay mid waliba haddii uu ma garanaysa 3dii qof ee 5tii qof ee hore ay qoreen mid walba hadduu 2 qof sii qoro maasha Allah 6 bay noqonayaan soo ma maasha Allah marka halka waxa kaaga soo baxaya 30 FBO ba tirada kugu jirta ayaa groupka uu ka kooban yahay 30 FBO na waxay noqonayaan walaalayaal oo muddo 2 bilooda gudaheed ku sameeya ama hal bil gudaheed ku sameeya 4 cc waa 120 cc weeyaan manad manager hayn maasha Allah tabarakallah manager manad hayn walaalayaal marka waxa weeyaan 4 cc supervisor hadda tahay maanta 3 qof hadii 2 bilood aad gudaheed ku sameeysan supervisor baad noqonaysaa 3 qof oo kaliya maasha Allah oo teamka ku kooban yahay 9 qof hadii teamka ku kooban yahay assistant manager oo inaad noqoto haddii teamka ku kooban yahay 15 qof waa inaad manager noqoto because of 4 cc 4 cc awgeed waa inaad ku noqoto manager marka waxa weeyaan 4 cc gu waa habka ugu fudud ee levelka lagu bedelo weeyaan okay waa dariiqa ugu fudud ee levelka lagu bedelo marka haddii aad doonayso inaad levelka bedesho just started now walaalayaal insha Allah ta'ala maanta bilow yaanad ma garanaysaa inay kaaga dambeyn aad bad u mahadsantii walaalayaal